السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. kusoo dhawaada mar kale mid ka mid a xalaqaadkii Fandhaal Podcast. xalaqadan waa xalaqadii konton iyo lixaad. mudanayaal iyo marwooyin, weligeen ma maqasheen waxay ku magacaabaan soft skills, mahaaraadka jilicsan, xirfadaha micnaha la tacaamulka dadka iyo si ay umuurahada adduunkan sidii la rabay kugu socdaan. micnaha waxay ku magacaabaan salis, wax walba sidii maaragtay burcad wax la mariyay oo kale in noloshaadu ay kugu يعني dadka markaad la tacaamulaysa gaar ahaan waliba markaad la kulanto yani dad kaa dhaqan duwan kaa luuqad duwan kaa af duwan yani kaa luuqad duwan kaa af duwan dad yani wax kaas aad ku kala duwan tihiin. waxaad ogaan doontaa mawduucan aan ka hadlayno adiga ka qof Soomaali ah in aad ugu baahan tahay. sidoo kale waxaad arki doontaa annaga ka Soomaali ahaan mawduucan soft skills-ka in uu aad noogu yaryahay. qisada kor waxaa jirtay qof dumar ah oo cadaan ah oo maqaayad ku lahayd meel wadamadaas galbeed ka mid ah. waxaa fariisan jiray dhalinyaro Soomaali ah. marka dhalinyarada markii wax loo keeno ama ay wax u samayso ma dhahan shukran ama yani thank you appreciate, macnaha hadalladan yara macaan ma yaqaanaan. markaas isweydiisay macnaha ayada weydiinaysa hadda uu imaaday waxay tiri adinka afkiina macnaha ama dhaqankiina kelmadda shukran waad mahadsan tahay yani waan qiimeynayaa wax macnaha kuma jirta miya yani kaliya waxaa taqaanaan yani hadalka murgaxan بس ما تقانا معناها هذا الذي يرى مع ملهذين مياه معناها وأرن موجنا إن أنا كصومالي هان لنعاس يعني أن حاجة أد أقول لي ذن لنعاس أن أد أقول لي ذن قد بدنا نشيك دون آد أي مهم إيه تصالوا إن كل دون أيانا ساق هذا دونا أن ساق هذا إنه قد أبقى أقهر oo aan ku tilmaami karno yani soft skills kartu way badan yihiin hadii aan tirino yani kumanaan wax ayaa la sheegay aad ay u badan yihiin. يعني markaad tusaale ahaan aan dhahan meel ayaad ka shaqaysaa qaabka dadka oo la tacaamulayso mudiirkaada ama qofka maamulaha ah luqadda aad u adeegsanayso iyo qof macnaha iska caadi in xoogaa noocan ma farqi u yara dhaxeeyo in yani lacala hadii aad mesela meel ayaad ka shaqayso qof ayaa maamula ku ah wax xikmad kuma jirto waana aqli xumo in aad ninka tusaale ahaan meeshas maamulaha ka ah aad la muranta caydo adigoo raba berri subaxdii inaad soo dawaamto معناه waa shay muujinaya inaadan haysanin soft skills aadan lahayn. عفوا aan soo qaadano yani qodobka ugu horeeya oo ah la xiriirka tawaasulka connectionka dadka aad la sameynayso. anaga ka bani aadam ahaan aslan waxaan nahay noole lagu magacaabo ijtimaaci bitabci ilaahay ayaa sidaas noo abuuray. macnaha waxaan nahay noole bulsheed. suuqa marka dad ayaad la kulmaysaa hadii aad dukaan wax ka soo gadanayso dad ayaad yani qof ayaa joogo gorgortan ayaa idin dhexmaray sicirka kan adiga yani noloshaada dhan ma noolaan kartid adigoon bini aadam aan la tacaamulaynin. la tacaamulkaas bini aadamka aad la tacaamulaysana yani wuxuu u baahan yahay wada xiriir. marka waxay dhahaan yani zamankan waliba hadda aan joogno yani caalamka maadaama uu noqday waxaad ku tilmaami kartaa tuulo yar in aad barato la xiriirka yani dadka sida loola xiriiro waa shay aad iyo aad muhiim u ah. waxaa kaloo jiro shay micnaha qof haddii aad lacala isla fadhidaan oo kale haddii aad dad isla sheekaysanaysaan oo kale kulan haddii lagugu yaray oo kale si aadan ugu muuqanin qof ama hadalkaada aanan lagu caajisin ama aadan u muuqanin qof yani ama iska aamusan ama inta badan aanan hadlaynin ama waxay dhahaan yani in aad leedahay waxay ku magacaabaan af carabiga waxay dhahaan xis fukaahi yar inaad leedahay micnaha kaftan yaroo yara qosle dadka inaad ka yara qoslin karto hadalka markaad hadlaysa in shaway macnaha wax yar macnaha waad qiyaasi kartaa طبعا aad dadka ka yara qoslin karto jumla yaroo qosle inaad ku soo yara dari karto kaftan yaroo dadka aadan dhaawacaynin oo khatar aad ku soo dari karto aslan macluumaadkan muhiimka qabso dhinaca macnaha waxay dhahaan in aad dad ka qoslin karto yani in hadii shay lagu qoslo yaro aad sheegto waa arin muujinaya inaad qof caqli leh ما ogtahay يعني هو دليل aan daliil kale ina ka dambeeynin macnaha shay muujina inaad qof caqli la tahay hadii aad awoodo macnaha inaad dad ka yara qosliso ma ahan mid caadi macnaha maan sababtoo ah yani adiga markaad qof aad ka qoslinayso kaano in qofkan dareenkiisa aad gashay aad qaadatay macnaha biinsa iyo aad wax ka badashay kadibna aad ka qoslisay macnaha waxyaabaad isku xirxiraysaa waxaad fiirinaysaa waxyaabo ayaad qiyaasaysaa si uu qofkan u qoslo kadibna waad ka qoslisay. marka waxay dhahaan macnaha bishakl caam aslan si guud ahaaneed
in aad xis fukaahi waxaan ula jeedaa macnaha dadka inaad ka yara qoslin karto yani waan arin qofkan isukiin soo dhaweynaya macnaha hadda qof laga yaabo inaad markii ugu horeysay isla kulmaysaan ama yani ama suuq aad wax ku wada gadanaysaan kaftan yaro qosolo yara haddii oo macnaha xirfadaysan oo habaysan oo aanan afxumo ama wax aanan ahayn haddii aad dhag ku yara siiso waa shay muujinaya macnaha qofkan muujinaya in aslan qof kasta u arka inaad qof caqli badan teeda kale qofkaas aad la hadlayso ama aad la xiriirayso waad isu soo dhawaanaysaan معناها سكيلز كان لحريرك waxaa soo hoosgalaya sidoo kale dhageysiga yaa salaam qof ayaad la sheekaysanaysaa yani waad hadashay kadibna markuu asaga hadlaayo waa inaad dhageysataa waliba haddii aad awooddo inaad wejigiisa fiiriso indhihiisa inaad fiiriso sidoo kale waa shay kalsoonidaadana asaga ka naf ahaan kor u qaadaya macnaha uu kaa aaminaya inaad tahay qof aad iyo aad u kalsoon oo markaad la hadlayso ama aan dhahan asaga uu hadlaayo aadan dhulka fiirinaynin ama aadan mobaylka ku mashquulsanayn indhihiisa aad fiirinayso waxaa jirta tijaabo yar oo tijaabo ma ahan macnaha ani wax igu cajabiyay ninka maarta facebooka leh Mark Zuckerberg waa nin dhalinyaro caqli badan wax kale markii laga soo tago aad ayuu caqli badan yahay ninkaas sawiradiisa fiiri asagoo dad la hadlaayo waxaad moodaa in la yiri indhaha qofkaas aad la hadlayso meel kale ha fiirin kaana qofkan indha keli inuu leeyahay meel kale una lahayn sidaas u fiirinaya indhaha qofka ayuu fiirinaya macnaha wuu feejigan yahay kow qofkan wuu ku ixtiraamayaa aad la hadlayso wuxuu arkayaa yacni inaadan maqnayn inaadan ka mashquulsanayn in aad soo jeedo yani kalsooni ayuuna siinayaa oo ah macnaha inaad tahay qof maasha allah oo aanan yani indhaha xagga aanan fiirinin oo caadi ah marka in aad qof markaad la hadlayso aad dhegaysanayso waa shay muujinaya ama qayb ka ah skillska soft skillska la xiriirka sidoo kale يعني وحاجر وضهذا waxay ku magacabaan macnaha body language macnaha yani afkaada una ka hadlin laakiin luqad caadi ah yani markaad hadlayso kale in yani aadan hilmaamin bal aad barato يعني إيماءاتك waxaa la jeedaa macnaha xarakaadka aad bixinayso wajigaada da yani da gacmaha sidaad samaynayso yani jirkaada sida uu yahay sida aad gacmaha uga hadlayso waa shay aad iyo aad muhiim ah xilliyada qaar waxay dhahaan aslan luqadda jirka yani waxayba ka muhiimsan tahayba kelmadan afka aan ku hadlayno marka sidoo kale waxaa ka mid ah يعني wada xiriirka yani wali maana qodobkan kamaana bixin waxaa ka mid ah sidoo kale macnaha hadal cad oo toos inaad qofka ugu sheegayso macnaha aadna soo gaabinayso hadal dheer hordhac dheer yani haddaani waxyaabaha yani mumkin inay fiicnaan noocan markas laga fiiriyo laakiin waxyaabaha ani sumad ahaan iyo youtube markaa ka hadlayaba mustaxiil inaan ku dhaho kale hadda sida dadka qaar ay sameeyaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada kanaalkanaga haddii ay tahay markii kuugu horeysay yani saxiix subscribes badan waa lagu helaa laakiin markii kuugu horeysay aad tahay kanaalkanaga kusoo biir jumlada ay adeegsadaan waxaa ugu xun si ay dhiirigelin noogu noqoto badhanka yani qofka si ay dhiirigelin noogu noqoto waxyaabaha dadka qaar ay sameeyaan oo kale macnaha waxaan ula jeedaa dad markaad la hadlayso kale hadalkaada inuu cad yahay aadan inta badan aadan soo warwareeganin aad yani hordhac baasoo dheer aadan isku mashquulin hadalkaadana uu cad yahay yani xitaa fiiriya adigana way kuu fududaan qofkaas aad la tacaamulaysana way u fududaan yani midaas waa mid aanu imaano mahaarada kale laga yaabo mumkin inaadan filaynin laakiin muhiim ah oo ah gorgortanka يا سلام معناها من سوق الدلالين جوجنا معناها الدلال بان ما الدلال متيد دلال ايات طبعا سببته ادون كان ان كنا اصلا ولشان وشيء معناها waxaad ogaanaysaa insha Allah waxaad ogaanaysaa maalmaha kamida in gorgortanku uu yahay yani waxyaabaha ugu muhiimsan waxyaabaha يعني إن هذا قف وحقوق عن عنكر تجارهن ضد كجناع سجالة أما وحيابها له أنا هذا كتصالحان أهمية ده وحان أجادي مركان معناها يوتيوب كانوا جاي أو وحيلسوا حريرة الشركة ذا يعني أمر ربعين وحلو حيسيو أما ضد كادل بايو كلا إن معناها إسكاش نوعا ما وحقون أتصميسان وكلا يعني هذه هذا أصلا أقون قابك لولت تفاوض معناها قابك أولا قرقرتميسا وحي أتكو إيه لهايد يعني حتى أديك كسعر كذا كقيمة هذا أنت أتكو سميسا وح والبهدينا كو عدين وح أتسمين كرتمالها وح كستنا وكادا يعمي جناع سادي أدلي هذا هاي أما وح والبوحد وغانيسا يعني سكيلز كان قرقرتن كإنو يهي مهمة تفاوض يعني أن
يعني ومهارة أما سكيلز جوني أو يعني كورسين لو قاطو يعني طبعا أصلا وحيابان هذا أنك قالين هذه هذه آخر صوت بارتو أسبوع عيادك فهم كرتا وحين ضمان أتكو بران كرتا معناها قرقرتنك يعني شيء وحاوي آد مهم يعني هذا فيريا عيارتيدا تصالح وعد مغليسا لبا نادي أيا عياريهن كلا قدانايو waxaad maqlaysaa gorgortankoodii wuxuu socdaa yani intaasoo bilood annagana waxaa laga yaaba maalan qof ayaan rabnay inaan wax weydiino wuxuuna yidhi arrinkaan ma ilaala sidaas kuma rabo khalaas sidaa waan iskaga tagno laakiin haddii aan dhahno sidaas ma ama sidaas ama kan ama marka yani mahaaradan ama skillskan gorgortanka dhinac walba waa muhiim wax kasta oo noloshada ku saabsan wallahi waa yani waan dhaartay waa shay muhiim in aan dhaarto macnaha muhiim ahaan waxaa loo jeedaa macnaha mowqif dhaar mudan ma ahan طبعا laakiin waxaa loo jeedaa gorgortanka waa shay aad iyo aad muhiim u ah haddii aad wax baranayso haddii aad dad la tacaamulayso haddii siyaasad aad ku jirto haddii wax kasta aad ku jirto haddii aad ardayta kaabagalaas haddaad tahay yani gorgortanka waad u baahan tahay yani xitaa fiiriya markii ama mawaaqif laga hadlaayo ama aaraa la soo bandhiga ama kan yani aaraa la isku khilaafo oo kan ma sameynaa yani haddii aad gorgortanku wax uu yahay aad taqaano meel dhexaad iskugu imaanaysaan يعني gorgortanka xitaa ma aan keliya wax la kala gadanayo ama dhinaca yani ganacsiga keliya ma ahan dhinac walba noloshan yani ka mid ah يعني sidaan hadda yara sheegnay oo kale dad haddaad wax isku qabsataan intii aad warnaaga tagtay ilaa iska xanaaqleed iska bixi lahayd يعني meel dhexaad iskugu imaanaysa waxaad ogaanaysaa aslan ku si talagalaysaan marka ugu horeysa shay markii laga wada hadlayo يعني inay dabiici jiddan tahay in wax la isku khilaafo يعني مثلا qof nin dhalinyaraha gabar doonay maanta waxaa la yidhi la gabadhan anaa kuma siinayna gabar guura ma hayno kadibna haddii aad micnaha noocan ma aad fahansanayn yani gorgortanka طبعا waxa kala gadanaya ma ahan laakiin waa dad wada hadlay bini aadam wada xiriirayo waxa laga yaabaa iska tagta laakiin haddii yani aad caadi u hadasho oo soo celiso dhahdo yani dadka yani waad fahmi kartaan yani wax walba oo noloshada ka mid ah ayay soo hoosgalaysaa yani ayaa waxa soo hoosgalaya gorgortanka waana shay aad iyo aad muhiim ah sidoo kale qodob kale oo muhiim ah oo la tacaamulka macnaha dad yani xataa adiga bulsho ahaan laakiin dadka ka yara lahjada duwan dadka ka yara macnaha ama aad meel kale ku nooshiin adiga hadii aad reer qoy tahay reer koonfur sida la tacaamulayso yani adiga hadii aad reer galbeed tahay ogaadeen dad ku nooshahay sida la tacaamulayso dadka qarda ku nool oo kale macnaha mafhuumka noocaas qodobkan soo socdo aqli bulsheed akhrinta qofkan waxa uu yahay yani inta badan waxyaabaha uu aaminsan yahay yani waxyaabaha قياس كرت إننا مضنين إن تكون مرنطة معنا شيء معين يعني أن هدي وآدو عبسي يعني هذا مثلا عندنا ما أنت مثلا قف عندنا باستدادة طبعا كمية محاكا لمن قف رئيس ومال لأن تراه آد معناها قد يدس الرميسان أما هدي أدو وذا النوشهين أما يعني أدين كضد عادي أيات مهمة أهن إن قضية كل مرنطة يعني محط أوجو أيسان أديكن أقول أوردي أنا جمحنا يعني أديكن هنا معناه حاله جدا مهم أهن جزئية معناها قيبها أنا وكله إنها قياس كرت معناها حول جدا ماشان عقل بولشيت كوا قفكاس كاير الدوان معناها وحيابها إنها دير قياس كرت وحيابها هذه أتكم مرنتان مشاكل يكيناي إنها يعني هذه قد يد سي جوني الله هذا لا أما يعني وأرن كله لكن هذه قفل عليه مثل أرضية آياتين كورة كونفر كورة وقوية يعني إنها تكون مرنتان مكانها هاي واحد كيف إيدي سنة ما لأديكم بس أسنعي معناها عقل قاعد هذيك قفل على يرى إنها تفهم كرت واحد مهم إنها هنا تكون مرنتان سيدو كله يعني بلشة هدي ألا جوكته يعني أديك مثلا بلشة هدي ألا جوكته وما بهنت إنها وحيابها قار كل مرة حتى أديك ولا يعني وحرية القول يعني هذا أنا مثلا خليج كأيام كنا ولا هي خليج كأيام كنا ولا صحيح وحيابها بدن والجيابة طبعا قلد إن يجران أما كان يجران يعني إن هذا أنا ما أنت مثلا تويتر كوسا قرأ كله يعني أمير كقدر تميم بن حمد واساس وكان قدر يعني وحيابان معناها أدن قياس كرت نتيجة كذا لندن تنين أجنبي أهاتي ماشان كنا هذا اللي قبتها يعني حاول جدا عقلية ده إن أد معناها قف حاجة عقل لا أتاي معناها أد لغة هذا أدن رصاص كفرينين وعن فهمها وعن قياسها معناها يعني حتى معناه أن توصل أيان أهض لها معناها كلام كانت أنكوش شيء وكلام أن تصكوش شيء إن هذا الله قار يصير ضعفان لكن وجدك مهم كوتفهم كرتان يعني عقل بولشيت كاس ومهم قفد اسلا جوجتان يعني مواقفتي سياسية إن تسكير احترامت إن أنا أدو غلامر من يعني حتى ولي عقل سياسة عقل عفوا حول جد عقل بولشيت كوحكم إذا يرين معناها مرن كبطن يعني مرن كبطن إن أدو مرن توكل أي حتى احترامك لهجاتك يعني قف ما أنت مثلا واحد اسلا جوجتان كان لهجة دوان أنا صومال أنا كوضع هذلنا لكن وان كير اللهجة دوان هي
وان كلا يرى لهجة دوانهي إن هذا مثلا أنا قرر وحنا الريمودك أنا قا أف صومالي في عن ما أنا وحنا قدر ريح حمر يان الله أنا أف صومالي أنا وأساس أدي أف صومالي قلدنا هذا يستأذنا هذا ورنا قد تجا أنا قد محي كوان أنا أف صومالي أنا قاعد لنا صح لا معناها رجعنا إن يعني الرمان أد قياسي كرتو معناها qof walba af Soomaali ayuu ku hadlaa duruufaha ayaa keenay cid walba meesha ku nooshay shay inay u yaqaanaan wala wax ay soo kordhinaysana ma lahan yani hadii aad maanta dhan ku muranta hadii dham la isku raacin af Soomaali sax ku hadasho kana af Soomaali sax oo ku hadlo معناها qof kaayir lahjad duwan in aadan dhihin anaga ka lahjad fiican anaga ka af Soomaali fiican anaga ka kan fiican aadan dhihin juz'iyadan muhiimka aad qiyaasi karto معناها aqli bulsheed inaad leedahay waxyaabaha qaar inaad qadarin karto yani magacyada xitaa inaad iska ilaaliso inta badan fiiri inaad aad iskaga ilaaliso kale qofkan meeshu ka imaaday oo kale inaad ku yara liido ama aad ku yara yasto yani reer hebel ayaa saan aad dhahdo yani shay aad qabiil magaci aad si u yara sheegto si u raacido waxaan mukayafkan iska damiyay xilligii waxa la gaaray kulaylka مكيف قديل دار معنا حوجة عطير بوليه هي ما تجابينا عرقنا خير أفرتني كوي مانت ضاحة عد كيسة لكن مسكف يعني عد ساسة مالهان مركا عقل بولشاتك يعني هذا أنا وحلقة بقينا كلمة ذا كوسا وذا كوبين لكن عقل بولشادات كوحيابها الهجات كلا حريرة كلا دوانان تدقم هذا يعني قف مثلا أدميل كود النوشهين إن وحيابهين احترامتان أنا هذا كور يعني مرة نرضي هين بلنيرا وحاني صومالي reewqooyi calaa kuwa ka imaaday jigjiga kuwa ka imaaday bari wala hal marna kumaan dhamaantii waxaan saaxiibo kumaanan murmin maxay ahayd reewqooyi ayaa tahay kan ayaa tahay adiga waxa tahay kan reew koonfur ayaa wala la ay qiima macna fiiriya arrinka cajiibka markii ugu horeysay xooga xasaasiyad way jirtay laakiin marka dambe waan fahnay macna marka dambe macna waan fahnay arrinkan inuu yahay arrin yani ay u baahan tahay macna qaab aqligaas kamid ah عقلك كمدة يعني عقل بلشاتك وشيء مهم سيدو كلا يعني قضبك كلا أما سكيلز كاس يعني سوفت سكيلز كات كنت المهم كرتا يعني أديك كقف أهان إسدي رجالي قلت كذا معناه وحيابها أدقشينا دوغان كرتا وحيابها يعني أن وحاول جدا أدي أتقلت قشينا دسسيح كرتا أدي أتجابس كانت إن أدي إصلاح حسابتها كرتا إن هذا ربع هن ما أنت أنا كعجيب كمان تقانا مركي ولي بتجيل كان لقاها الله بوق حتى وحاجة مرة عن سواق قاضني يعني الهشاشة النفسية لماذا أصبحنا هش معناها يعني أن حنو نقول معناه كوننا في أهنجل عسن بقول مقعبة يعني أن إبراهيم عرفة لا إبراهيم عرفة ما هين خد كجرا الهشاشة النفسية موضوع كما بحين إسماعيل عرفة صحيح بوق معنا مقع يساوي الهشاشة النفسية جلاع النفط معناه وحلاي هاي جيل كمان تمركو كهاد لايو إن أي يعني أن وحكستو أي أباهين معناه إن الله سيدا سماه قف معناها الشيء معلومات هيستو يعني وحيابا عادين كمثلا وسماية ضمان تودي قانو خطرت هذا وحكستو أوج أركي مقلي أيا لقيا إنه أباهين أفر لبا تنسى قف معناها dhiirigelina inuu maqal kalmad dhiirigelina inuu maqal macna qof sidaas samee in uu loo sheegay macna soo arkan u sameeyo marka yani inaad adiga ka qof ahaan aad awoodo inaad is dhiirigeliso wixii naftaada dhibay inaad ka istaagi karto wixii macna faa'iido ku aad sameyn karto adigoo yani aad naftaada raacin adigoo xiliyada qaar yani hurdada sii raba aad hawlahaada qabsato macna mas'uuliyadda naftaada adiga inaad taxamuli karto inaad qaadi karto meeqa daqiiqan marayna 19 daqiiqan marayna mumtaaz jiddan sidoo kale waxyaabaha kamid ama skills sida kamid Allah المستعان يعني soft skills kan waxa kamid ah xalinta dhibaatooyinka ya salaam adduunkan mowduuci ugu dambeeyay aan ka hadalnay aslan wati aan yaranire yani waa adduun dhibaato taala adduun waxa way macnaha asaga dhama mashaakil badan ayaa ku soo maray dhibaatooyin badan ayaa ku soo marayo marka hadii aad taqaan la tacaamulka dhibaatooyinka kala duwan يعني مدة قويس كدحديث مدة معناها وحيابها خصوصيات وحيابها بدن يعني وقيب كمدة نولش هذا معناها كاساعدة وحيابها بدن هذا حلسة مركا مهارة أما سكيلز كحلين تدريباتوينك
adiga haddii ay noqoto goob camal yani qalad ayaad ku dhacday, wax ayaad qaladay, mushkilad ayaad samaysay, wax ayaad lugaha la gashay, si walbaad u wanaagsanta, si walbaad u tahay micnaha qof fiican, yani qaladaad badan ayaad gelaysaa, shaki la-aan qaladaad badan ayaad gelaysaa, lugaha ayaad wax la gelaysaa, wax ayaad yani gabawaraysaa. yani haddaan dhahno marka yani in mushkiladan aad ku dhacday adiga lugaha aad la gashay, sida inaad qirato oo kale, inaad yani sidaad ola tacaamulaysa adaa yaqaano. waxaan ula jeedaa micnaha xalinta dhibaato inaad taqaano, mushkilad ku soo wajahday inaadan kasii cararin, inaad madax u gasho, in aad yani dusha aad u ridato marka hore mas-uuliyadda arrinkan. sidoo kale arrin kale waxaa jira oo yani muhiima maanta oo aan ku magacaabi karna micnaha altafkiir annaqdi. micnaha shay markaad maanta internetka ku aragto, macluumo ayaad aragtay, wasiir ha soo qoro, ay qof ha soo qoro, macluumadaas micnaha inaad qaadaa dhigi karto adigoo isfiirinaya micnaha macluumadan talow arrinkan ma sax ba, arrinkan ma qalad ba, micnaha inaad yani fiirinayso ay shay internetka aad ku aragto, ama ay shay wargeysada lagu qoro ama tvyadan laga baahiyo aadan iska rumaysanin. micnaha inaad leedahay shaahmiir aan dhahno ama shaqshaqmiir, yani waxa aad ku miiri karto macluumadan kusoo gaarto in ay sax tahay iyo inay qalad tahay aad ku ogaan karto. yani maanta adigoo qof weyn laga yaaba canug youtuber yar oo yani wax uu yahay ama cilmi aan lahayn, asaako qof ahaan olama jeedno micnaha cilmi aan lahayn طبعا dheh, aad laga yaaba macluumo hadda kuu sheego qofka iska rumaysta ama uu u maleeyo xaqaa'iq jirto, ama يعني تيدا كلام معناها معلومة مركز مقاشو كلام أما قف كاس هكو عجبية أما قف احترامتها هذا معناها شيء مركو كوشة أما حتى الرأي وكله وذاك رأي جس مقاشة قصة معهن معناها الرأي جس سجوا وذاك بريدا إلا الضبقاية. يعني واحد أركيسا مركا غير كود، يعني أنا وحن ليا بحليت غير والله وحن ليا بكومنت واحد أركيسا مثلا يعني قف كله شن سنان كله السعودي أو موضوع والبوت صادق تعجبناي رأيي معناها شيء معين. أنت واد قياس كرتان، يعني أنا واد قياس كرتان أني حكومة افتراض كان ضليعية وحنا ضليعية سومالان وحنا ضليعية معناها أي واحد والبو قلدن، يعني إنسان حر أنا ولا عدبان المثلين ولا عدبان محي إذا أنا كتر سنين أنا إنسان اسم مقعيق عمر إنشار وكا لقيا بينات ما أنت رير سومالان بعض ضليعين يسا صوماهن شن سنان كل السعودي محي هيدا أن هذا من وكلاوات دولتك انت سنان كل السعود ورنقتك. يعني حتى والله قار ايا يدها فيريا انا ما له حاير كلي وحايدي من اللي يقول اذا ان اشقاي معناها سردونك كونغو ديمقراطيه كلي ايا يدي من امام maxay ahayd aan ka tirsanahay sirdoonka Burkina Faso. يعني waxa la jeeda يعني in macnaha waxaan ka wada macnaha qofkan yani aniga hadii aad igu maqasho kale macnaha kelmad mowqif aan ku dhaho muhiim macnaha kama dhigne beridan qoyan macnaha in la dabaqay wixii qofkan aad ka maqashay. macnaha macluumo markaad maqasho kale ama xitaa qof ra'yi markaad ka maqasho kale adduunka ma gadoomayo qofkan awood ma lahan ra'yigiisaas oo ku dabaqo berri oo ku dabaqo ama beridam oo ku dabaqo waa qof caadi hadlaayo. macnaha inaad qiyaasi karto qofkan ama ku dhaleecaynayo ama qadiyadan dhaleecaynayo ma siyaasiba ma qof youtube ah oo meel ka hadlaya ma qof iska caadi ah ma qof shakhsi. yani anaga dhamaan waxaan afraad ayaan ashkhaas ayaan nahay dadka anaga unba isla tacaamulayna. macnaha inaadan u arag shay xatmi ah qofkan qadiyadanadas ayuu dhaleecay hadaba soo maahan khalaas aan sabab mardama kulama hadlaayo 5 sanaan kula socday 6 sanaan kula socday. yani qof 5 sano yani wixiis ay ku cajibinayeen yani hal mar shay ra'yigaada ka duwan oo kula wadaagay oo aad leedahay yani sidoo kale mahaaro kale waxaa jirta ama skills lagu magacaabo yani jilicsanaanta iyo la qabsashada. تصالة يوم كفهمينا وحاجة الجملة وير علي بن أبي طالب رضي الله عنه أما الله نسبيه سببته حلية قار يعني حكمتها وحلقة يابا إن مد وير عمر بن الخطاب أما علي الله نسبيه أما حتى ضد متأخرين أي لهين الله نسبيه معنا قف سلف كم إذا أنت بدنا أرن حساسية وأنا مركز أوفر ستان وحضر كيسا إن أرن كان مصيبة وين إتاي يعني الجملوين كعادة معنا حكمتها إن أنت يعني حتى قبيض عادي قبي ومتنبي الله نسبينا يهبل مد يعني marka inta badan waxaan dhahaa hadal loo nisbeeyay Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wuxuu yiri la takun salban fatuksar wala liinan fatu'sar. macnaha noqon dhagax shay adag si aan lagu jabinin. yani
ama mid aad u jilicsan si aanan lagu miirin. yacni haddii aad ama meel maalan laga awood badan yahay aad joogto ama dad yacni qadiyad ama noocay ahaataba micnaha madaxa ha soo taagan inta badan adiga micnaha waajihada hore haysi soo dhigan xilliyada qaar waxay dhahan geesinimada marmar ayay doqonnimo noqotaa micnaha inaad umuuraha qiyaasi karto in sidii maaragtay dabaysha marka imaado kale yani beerta ama galeyda kale yani dabaysha ayay isyara raacaysaa yani xitaa fiiri buundooyinka wax saasoo kale may ahaayeen qaar ayaa waxaa jira meelaha dabaylaha leh yani kaano ama xitaa fikrad waxaa jirta jabaan guryaha micnaha si ay oga adkaadaan dabaylaha iyo maxay ahayd dhulgariirada in guriga kaano inuu yara dhaqaaq kaano inuu micnaha yara leeqaayo kale si dabaysha ayna u kala tuurin micnaha waxaa loo jeedaa inaad fahmi karto xilliyada qaar aad qiyaasi karto waqtiga ay u mudan tahay arrinkan inaad ku muranto ama muranka inkastoo guud ahaan fiicnayn iyo waqtiga micnaha aad wax maslaxad ayna kugu jirin micnaha inaad umuuraha qiyaasi karto inaad dhahdo ani qadiyadan khalaas haddaba si kastoo ay tahay waan maxay ahayd waan ku murmi kadibna lagu jabiyo laa takun salban fatuksar walaa liinan fatucsar aan mar kale kuusoo dulmar aan kula wadaago yani qodobadan soft skillskan muhiimka ah oo ah la xiriirka ahmiyadda la xiriirka dadka inaad la xiriirayso dadkaas kala duwaneed caalamka yani ama bulshadaada ha ahaadeen ama dad kale ha ahaadeen aad la tacaamulayso kale yani xiriirkan waxaana soo hoosgalayo yani dhegaysiga qofkaan hadlayo inaad dhegaysanayso micnaha muhiim keligaa ma aan inaad hadlayso يعني أهمية إن هذا الشيء سيدا كله إن دقيسني أيضا ومد مهمة سيدا كله لوقدة جرك لوقدة يعني قعمة هذا يعني سيدا عاد وجهي هذا إن هذا ذا يعني حتى أنا وياه القضياشة رنتي هذا إيه عجبني جري وأنا يرى ركجري قضيال أباهي مركز شاكسان أوه الله مروحة تريد هذا الكقف كاس هذا يانا عنان يعني هذا قف أكوش شاكيناي موضوع هذا الموضوع كلا كاس سمينينا قف يا كوشا كاين واتسكا امسنت واتسكا اساس كا امسنت لكن مركز ما تقانا فيري قف كوشا كاين قضيه يعني حتى وحيدا حليت غير وحل اسكيرا دغا موضوع حتى اد مقشي ان يعني مبالغه كو سمينيسو كله قف كوشا كاين وحو كليهي معناها مثلا وحيدهان قف ضمانت كو دو كله ما انت من رميسان كرتا ارنكان ارنكاس ايان سو سميي او دهدو معقول وانا قف ادك باتا يا سلام يعني ما أديك هذا صاق هلك كبحد أمورها صار ما يستطيع يعني قف كاس يعني فرحت كلي عركو قلي معناها أنا تفانسنت هاي أهمية ده معناها لحريرك يعني قف مركو شاكين أيوة كله يعني دقيسك مركو لقى صوتك لا تواصل كمان حريرك لينها يعني جركة ذا إيوه ذا سيو حواس معناها أتقياس كرتم يسودو كله هذا الكذا إنه يهمد إيجاز ووضوح معناها هذا الجابر وعد أو يعني أرنك أتكاليس أسيتوس أو أبارك كرتم سودو كله جرجرتن كأو شيء عادي مهمة نلاش هذا لن أقدر كيس إن معناها سامين ونكسر أرنك كويا لنا يا سودو كله عقل بولشاتك يعني عقل بولشات كمجتمع على النوشة هنا داخلين كرتو وحيابها معناها حساسية وحيابها يعني أمورها قارد كإلالين كرتو فهميسا يسيدو كله أديك إن يعني إسليرين قلي كرتو يعني قلادات كذا قبان كرتو سيدو كله حالين تدباتوينك مشاكل كقصامرة دون كان إن أود أولاد إن حلسة سيدو كله يعني إن هذا نهين يعني برسو تاجن أو سي لو جبيه معناها طاي سيدي ما رتحلي قار معناها كم مواقف تأكون يعني أنا تاي أو كلا عندها يعني بهالك ده حرباجة صومالي وحلو ده جرجرولة أما جيل أوروجية والله يعني بهالكاس اسم بدله يعني حليت قار إن أمورها يعني ضبيش إن حاجة معناها كهر جبانيس طبيعي دي ضعضاء أو مواقف يحاول معناها إن هذا ما تحسوت تجسي أنا الوجبيني يعني هذا وضعت إذا من مركز أوفيسي إسكو جيران يعني كورن أيضا هالكاسو كلا وجوجا دور بقولهم متر أكوجرا نين يعني سنايبر شيشيهن أكوجرا كدبنا هذا وانفيرين ما تحسوت تاين كدبنا يعني حبط وجهك هقبسطها حكمتكم جرتا معناها إن وضوء قياس قادن كرتا حتى أرمها سوكلا يعني إن وحيابها قار وتفهم كرتا يا سلام مركا إن شاء الله يعني سكيلز كان رنتي آدي مهم ويهين أنا كمجتمع إن أنا واحد أركيسا إن أنا آدي أقول باهنا هاي عالم كلام مركز التعامل السنة واحد أركيد أنتها إن أي معناها هي مد مهمة مركين لين معناها صومالي ده دقن كود واصحان مش عارف إيش ما تقانان محي هيدا يعني ما هتسند شكرا يحاول ما تقانان نوعا ما حيابها ما يرى باهنا
inaan akhrina bulshadaas aan la noolnahay aan yani hadda carabtaan oo kale fiiriya carabta khaliijiinta maalan yani qof qadare wuxuu jecel yahay inaad lacalla haddii uu aabba yahay canugiis inaad ugu yeerto yaa salaam yani abu cabdallah abu jaasim abu axmed haddaad dhahdo cirkuu geli micnaha juusiyadaas yarta inaad ku baraarugsan tahay oo aad yani ugu yeerto waxay aad u jecel yihiin micnaha is-ixtiraamka ayaga fiiriya canug yar hadduu fadhiyo canug yani fiiriya niman waaweyn haddii qolka fadhiyaan canug yar 10 sano jir albaabka uu ka soo galay way u istaagaan yani fiiriya way u istaagaan marka uu istaagaas halkan ma ahan yani canuga sideen ugu istaagay noocan ma waa dhaqankooda ka mid ah micnaha adiga lacala haddaad la joogto kale inaadan dhihin dhaqankooda maxaa iga galay yani xoogaa aad mashiiha aad la socodsiisa marka mahaaraadkaas skillskaas soft skillskaas waa arrin muhiim ah mawduucan intaanu ku ega mudanaya marweyn waa walaalkiin cumar inshaar والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.